waxaan ku weydiinaa horta gabadha waraysigeeda arkay iyadoo leh ilma aan dhalanna ma jirto qof i qabana ma lahan kolley cabdisalaan xilliguu guursanayay taariikhda way iga maqan tahay laakiin waxaan jeclahay horta dadkii bariiska wax ka cunaya waxaa u maraysaa codkaa soo laalaabanayo ma bariiskii aan cunaynay dadkii arooskooda ma hadda la dhahoyaa macnaha waa haddii aan run ka hadalna wahayd waa marka bariiskii iyo xalwadii aan ku cunno soos maa la dhahoyaa hadda dadkaas dad isqaba ma ahan mise ilmo iskuma dhalin horta arrinta waxa iga jaahil bixin horta iga jaahil bixi horta sheeko see u kala socoto waxa waaye horta waxa la arkay bala markaa ku dhahay saas waaye ani waxa iga hor muuqda adiga iyo kulu iga hor muuqda habeenkaas yani muusiga meesha laga shiday heesta aan ku dheelayseen iyo wixii oo dhan iga hor muuqda waxaan kusoo baraarugay ayadoo gabadhiyo youtube fadhiisoo dhahaysa iyo cabsalaan oo aqaano iyo hani oo aqaano ilaa soomaaliya ilaa iyo ma degnin oo aeroboortka aan geyna habeenkii yaab kale wuxuu ahaa gabadhii uga dacwooday inuu xaaskiiseeda oo asaga soo kaxaysto uu keensaday Italia ilaa iyo Sweden keena oo tiri limana guursan inmana ma dhalin wallahi ni horta waxa waaye bacdi ma tii karno ama hadee kala tageen ma sheegi karno laakiin inta ogeen inay u dhashay 8 cunug si fiican saddexna Soomaaliya u shaqeeyeen labana ay la timi Sweden saddex kalena ay Sweden ku dhashay si fiican ya haddana maanta waxaan arkay gabadhii oo dhahaysa aniga totally maba lay guursanba ilmahana maba dhalinba si fiican marka subxaanallah waxa waaye inuu ceeb Allah asturo ana waxma aniga walaalkay cabdisalaan anoo yar ah ayaan arki jiray horta cabdisalaan iyo shanaamada iyo anoo galay waa gartay gabadhan oo arki jiray shanaamada irideeda taagtaagay oo lacag loo gali jiray aad iyo aad si fiican xaqiiqdana dee wax walba way iska cad yihiin oo wax la inkiri karo this world maanta la joogo waxa waaye baaritaanba uma baahna star inay tagaan DNA ga cunuga iyo ayaga iska baaraanba ugu filan inay cadeymo heli karaan cadeymo nool haddii la rabane anagoo dee isla xaafadii ah oo xaqiiqda iyo runta og heer soosa DNA anaka DNA qof kartay raadina anaga DNA أنا cabsalaan iyo gabadhii ma kala tageen waxaas meesha ma yaalaan waa gartay muhiimadda waxay tahay kala tag kama hadloon anaka ha ilaa araba isqaliilo iyo cabsalaan cali xaashi laga ma hadlayo hani muumin maxamed iyo cabsalaan cali xaashi ma yihiin dad micnaha is yaqaanay oo isguursaday oo ilmo isu dhalay taas annaga ku dhaaranayna annaga cadeynayna de annaga naqaanay oo sidan de nafteena u naqaanay iyaga saaxiibayaal halkan waa xamarcada TV muuqaal kale ayaan idin haynaa ugu dambeyn waxaa soo hadlay isla markaana sheegay xaqiiqda dhabta dhalintii ka qayb gashay arooska cabdisalaan cali xaashi waliba hani muumin haddaba dhalintaasi waxa ay sheegeen in cabdisalaan iyo hani ay ku aqal galeen xaafadda Soos degmada Hiirwa ee gobolka Banaadir haddaba waxa ay ka hadleen taariikh iyo waayo iyo xilliga ay isbarteen dhammaantooduba waxa ay ka sinaayeen in ay ku cadeynayaan in hani muumin ay ahayd marwada cabdisalaan cali xaashi isla markaana ay u dhashay 8 caruur saddexna ay ku geeriyoodeen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya halka 5 kalena ay ku wada sugan yihiin dalka Sweden haddaba hani iyo cabdisalaan waxay isguursadeen 1998 oo hadda laga joogo 24 sano haddaba saaxiibayaal dhalintaasi waxa ay sheegeen isla markaana ay iska wareysteen arooskii kala kacsanaa ee cabdisalaan cali xaashi waliba hani muumin waxa ay sheegay inay aad u yaryaraayeen isla markaana ay xalwada iyo bariiska arooskaasi aad u cuneen haddaba dhalintan waxa ay ku sugan yihiin qurbaha waxa ay live soo wada galeen iyagoo markaasi tilmaamaya inay yihiin marqaatiga nool ayna ka aamusi waayeen arrinta hadda ka socota baraha bulshada
waxa ayse sheegeen dhalintan markay arkeen hani muumin oo inkiraysa in caruur ay u dhashay cabdisalaan cali xaashi uu madaxa la wareegay dhammaantooda islamarkaana ay ku noqoto sheekadan mid filawa ah. fariin ayay u direen Kamaal Cabdul oo ay ku dhaheen nin rag ayaa tahay, wax adiga aanan kuu cuntamaynin dadka kale ha u qaadin, ma jeclid gabadha aad qabtid in nin kale uu kuula wadaago, sheegana in ay xaaskiisa tahay. haddaba ragga qaarkii arrinkaasi aad bay u dhaliileen, gaashaanka ayay u daruureen. raggana kama kaftamo arrimaha dumarka, muhiimaduna waxay tahay in arrinkan hoos loo qaboojiyo. haddaba dhalintan waxa ay tilmaameen in cabdisalaan iyo hani ay ahaayeen dad aada isku jecel, xaafadda soosna ay caan ka ahaayeen, weliba habeenkii oo kale markii shaleemada la aadayo ay garbaha ay siisan jireen iyagoo markaasi ubaxa gacanta ku sita. waxa ayse la yaabeen sida markaasi fudud ee hadda u bilowday in hani ay u inkirto cabdisalaankii ay shalay jecleed islamarkaana ay u waalan jirtay. haddaba waa arrin iyo su-aal kale oo meesha ku jirta. dadka badankii waxa ay tilmaameen in hani hadda ay mudan tahay in loo duceeyo. dhalinyaradan waxa ay ku baaqeen kulan kale oo live ah si markaasi ay quraan ugu aqriyaan oo ay ugu duceeyaan inanta hani oo la sheegay in qalbigeeda uu xaday Kamaal Cabdul. waxaan ku weydiinaa horta gabadha waraysigeeda arkay iyadoo leh ilma aan dhalanna ma jirto, qof i qabana ma lahan. kolley cabdisalaan xilliguu guursanayay taariikhda way iga maqan tahay, laakiin waxaan jeclahay horta dadka bariiska wax ka cunaya. waxaa u malaysaa codkaa soo laalaabanayo. ma bariiskii aan cunaynay dadkii arooskooda ma hadda la dhahoyaa macnaha waa haddii aan run ka hadalna wahayd waa marka bariiskii iyo xalwadii aan ku cunno soos maa la dhahoyaa hadda dadkaas dad isqaba ma ahan mise ilmo iskuma dhalin. horta arrinta waxa iga jaahil bixin la horta iga jaahil bixi horta sheeko se u kala socoto waxa waaye horta waxa la arkay bala markaa ku dhahay saas waaye. ani waxa iga hor muuqda adiga iyo kulu ay iga hor muuqda habeenkaas, yani muusiga meesha laga shiday heesta aad ku dheelayseen iyo wixii oo dhan iga hor muuqda. waxaan kusoo baraarugay ayadoo gabadhiyo youtube fadhiisoo dhahaysa iyo cabdisalaan oo aqaano iyo hani oo aqaano ilaa soomaaliya ilaa iyo la degnin oo aeroboortka aan geyna habeenkii. yaab kale wuxuu ahaa gabadhii uu uga dacwooday inuu xaaskiiseeda oo asaga soo kaxaysto uu keensaday Italia ilaa iyo Sweden keena oo tiri limana guursan inmana ma dhalin. wallahi ni horta waxa waaye bacdi ma tii karno ama hadee kala tageen ma sheegi karno, laakiin inta ogeen inay u dhashay 8 cunug si fiican saddexna Soomaaliya ku dhashay, saddexna Soomaaliya u shaqeeyeen, labana ay la timi Sweden, saddex kalena ay Sweden ku dhashay. si fiican ya haddana maanta waxaan arkay gabadhii oo dhahaysa aniga totally maba lay guursanba, ilmahana maba dhalinba. si fiican marka subxaan allah waxa waaye inuu ceeb allah asturo. ana waxma aniga walaalkay cabdisalaan anoo yar ah ayaan arki jiray horta cabdisalaan iyo shanaamada iyo anoo galay waa gartay gabadhan oo arki jiray shanaamada irideeda taagtaagaya oo lacag loo gali jiray aad iyo aad si fiican xaqiiqdana dee wax walba way iska cad yihiin oo wax la inkiri karo this world maanta la joogo waxa waaye baaritaanba uma baahna star inay tagaan DNA-ga cunuga iyo ayaga iska baaraanba ugu filan inay cadeymo heli karaan. cadeymo nool haddii la rabane annagoo dee isla xaafadii ah oo xaqiiqda iyo runta og heer soosa DNA annagaa DNA qof kale soo raadina annagaa DNA ah aan ahay cabdisalaan iyo gabadhii ma kala tageen, waxaas meesha ma yaalaan. waa gartay muhiimadda waxay tahay kala tag kama hadloon annaka haa ilkii caraba isqaliilo iyo cabdisalaan cali xaashi qofka lagama hadlayo. hani muumin maxamed iyo cabdisalaan cali xaashi ma yihiin dad micnaha isyaqaanay oo isguursaday oo ilmo isu dhalay? taas annagaa ku dhaaranayna, annagaa caddaynayna, dee annagaa naqaanay oo sidan dee nafteena u naqaanay iyaga. sababtoo ah dadka ay ku ag dhashay marka
sidaas aawadeed aan aamusi waayey live ka soo liftay waa gartay anina waa walaashay waaye cabdisalaanna waa walaashay waa gartay marka waxaan ku weydiinaa horta gabadha waraysigeeda arkay iyadoo leh ilma aan dhalanna ma jirto qof i qabana ma lahan kolley cabdisalaan xilliguu guursanayay taariikhdii way iga maqan tahay laakiin waxaan jeclahay horta dadkii bariiska wax ka cunaya waxaa umalaysaa codkaa soo laalaabanayo codkayga ma soo naqano si saafi ma maqlisiyo kii hore soo laalaabanayo ii kaadib waay dhegahanaan gashana si fiican si nadiif ma maqashaa okay waad warniyow run maa isku sheegaynaa horta misbeenaa la sheega ma bariiskii aan cunaynay dadkii arooskooda ma hadda la dhahoyaa macnaha waa haddii aan run ka hadalna wahayd waa marka bariiskii iyo xalwadii aan ku cunno soos maa la dhahoyaa hadda dadkaas dad isqaba ma ahan mise ilmo iskuma dhalin horta arrinta waxa iga jaahil bixin horta iga jaahil bixi horta sheeka se ukala socdo waxa waaye horta waxa la arkay bala markaa ku dhahay saas waaye ani waxa iga hor muuqda adiga iyo kulu ay hor muuqda habeenkaas yani muusiga meesha laga shiday heesta aan ku dheelayseen iyo wixii oo dhan ay hor muuqda heesta tii la shiday iska dhaafay baawurta xataa arooska lagu galbinayo marka niyo waxaa horta qofka bini aadamka waxaa la rabaa horta wax macquula in la sheego ma fahan marka dee odayaal badan horta way ku jiraan qadka caawo kolley caawilna wuu ku jiraa dad badanna way joogaan marka insha allah bal waraysi saasuu noogu soconaa adduunkan aakhiro horta adduunkan waa laga tegaya si fiican sababtoo ah waxa waaye adduunkan waxa waaye wax ku nagaanayaaba yarba haye marka aniga horta labadeeda garbood malaa'iga qofaan u helay ma jirto wallahi maantana malihii cabsanaan qaldan iyo haniya qaldan ma laga annaga ujeedkeena waxay tahay labada qofood way isqabi karaan way isfuri karaan laakiin ujeedka aan leeyahay waxay tahay labadan qofood ee soo wada mareen waa la kala tegi karaa waxa waaye dhib ma leh ha kolley dadka gadaal ka soo galay waxaan rabaa inay horta barnaamijkan caaw aan ka hadlayna ay tahay cabdisalaan iyo hani oo ayaantanba social media isdhex socdeen tiktok ha dhihin facebook ha dhihin meel walba la wareejinayay marka dadka qadka ku jiro caawo labadeena ani cabdinaasir markhaati aan ka nahay dad badanna way ku wada jiraan meel waxaan ka imaanay la leeyahay hurwaay mise soos qofka yaqaano dadka dhan meesha iskula soo koreen marka waxaan usoo galnay caawa livekan mise aan ugu hadlaynaa waxay tahay inaan caddayno horta dadku way isfuri karaan way isqaban karaan wayna kala tegi karaan family haddii leeyahay waayo ilkii caraba isku dhow way isqaninaan ma garad marka midda keli oo rabno caawa aan ka hadlaynaa waxay tahay inaan caddayno dadkaas in dad famil jira ay yihiin ilmana ay isku dhaleen kolley arrinteena waa intaas ma garad waa taas waaye aniga waxa aan ka hadlayba taas ahba yani heblaaya saxsan iyo heblaaya qaldan maahan waa isqabi karaan laba qofood way isfuri karaan waxaan heshiis waaye laakiin codkaada ayaga gooy cabdinaasir may maqlaysaa waxa aniga waa ugu soo laalaabanayaa codka okay cabdinaasir aad u mahadsan tahay waraysigaas oo qiimaha badan aad macnaha caaw bixisay mise ummadda soomaaliyeed aad u qeexday mise aad u sheegtay in macnaha arrintii ayaamaha laisdhex waday aad u bayaanisay hani in ay macnaha caruur ay leedahay cabdisalaanna uu qabo macnaha oo reerkaas reer jira ay yihiin dadkii macnaha aad u caddaysay aad iyo aada ugu mahadsan tahay kolley waraysigan sii wadi doonaa intii maxay ahayd markhaatiyaashina waa soo qaban doonaa insha allah aad iyo aada u mahadsan tahay cabdinaasir mudan bal warbixin laga sii bacaawo warkan unaka shay waa la yaaban yahay waa gartay
horta baryahan waxaan arkaynay youtube-ka oo wax ka socdaan aniga waa kusoo baraarugaba waxaan kusoo baraarugay ayadoo gabadhiyo youtube fadhiisoo dhahaysa iyo cabsalaan oo aqaano iyo hani oo aqaano ilaa soomaaliya ilaa iyo la degnin oo aeroboortka aan geyna habeenkii yaab kale wuxuu ahaa gabadhii uga dacwooday inuu xaaskiiseeda oo asaga soo kaxaysto uu keensaday Italia ilaa iyo Sweden keena oo tiri limana guursan inmana ma dhalin wallahi ni horta waxa waaye bacdi ma tii karno ama hadee kala tageen ma sheegi karno laakiin inta ogeen inay u dhashay 8 cunug si fiican saddexna Soomaaliya ku dhashay saddexna Soomaaliya u shaqeeyeen labana ay la timi Sweden saddex kalena ay Sweden ku dhashay si fiican ya haddana maanta waxaan arkay gabadhii oo dhahaysa aniga totally maba lay guursanba ilmahana maba dhalinba si fiican marka subxaanallah waxa waaye inuu ceeb allah asturo annaga waxaan rabnaa inaan u caddayno dadka Soomaalida ah oo youtube-ka ku arkay caddaynayna haddaan nahay reesoos ahaan in ay gabadhaas wiil walaalkeena ilma u dhashay 1998 si fiican 98 guursadeen si fiican annagoo ilmay yaraan meesha bris ka cunay arooska habeenkii waa foodeynay adiga kulu iyo isheeg xayeysi allah naxariistay group badan meesha ka ciyaaray si fiican marka cabsalaan walaalkeena qaar allah si cabsalaan cali xaashi iyo hani muumin kale ka bacdi laba qof waa isfuraan waana kala tagaan waana isla joogaan ma fahanti si fiican laakiin haddeertaan waxaan arkaynaa gabadhii oo nin kala dhahayo waa xaaskaygi subxaanaka ya cadiim si fiican marka subxaanallah ilaahay hana hanuunisho ilaahay ayadana waxa waaye ha loo duceeyo in ilaahay ayadana cudurka ku dhacay ka saaro niyow aan ka dhaxgalay faarax horta hadalka adaa ku wato horta adduunyadan waa iska dhib badan tahay qof waxaa arkay horta wadamadan qurbaha waa aragtay xoogaa stressa iska jiro qofkii maskaxdiisa say u joogtay waa uu isbedeli karaa qofka horta wax baa ku dhici kara ma garato horta reer soos ahaan soos qof ka imaado horta qof inkiri kara maba jiraba ma fahan reer soosna waa is yaqaanaan oo maanta qof gaadi karo qofkan ma ihi mise kama imaan horta dhihi kara ma aha caaw dhan horta annaka waxaana soo kicisay mise aan maanta usoo galnay meeshaan waxay tahay in meeshii bariis aan ka soo cunnay arooskii muusi ku soo ciyaarnay ilaahay ku roonaaday meeshii wanaag iyo sharaf iyo reerreen horta looga soo tagay ma fahan marka kolley ilaahay horta waxaan u baryaynaa horta in isku soo celiyo gabadhan hadday xanuunsan tahayna caafimaad allah siiyo kolley horta wixii qaladan allah og laakiin waxaa bulshada loo caddaynaa mise caawa aan usoo jeednaa waxay tahay in macnaha wixii ay jiraan gabadhan inay cabdisalaan u dhashay caruur ma fahan marka arrinta kolley hadalkaada adoo soo koobahay dad badanna meesha way ku jiraan oo waxaan rabaa hadda inaan soo wada qabto bal insha allah soo koob صح gabadhan horta waxay ilaahay intuu waa si wada hadalkaada waa wadan kartaa hadal yani horta arrinta runta waxay tahay ilaahay igu og yahay xaqiiqda ah in gabadhan ilmaha u dhashay cali xaashi si fiican gabadha inkirayso hani Soomaaliyan ku aqaan ilaa yaraanteeda aqaanay hadda markay Nairobi isla degneen Comoros isla degneen way soo baxday Sweden ay timid yaaflay degnaayeen ayada iyo ninkeeda iyo kulli waxa waaye waa isku dhaqnaayeen marka waxaan leenahay loo duceeyo ما هو دعاء واحتريس إن شاء الله إن إلهي مركا نيو إن شاء الله تعبتك أنا أبنى هنا إن شاء الله أوكي في عندك عافماتك ورن نوضع الحمد لله هو في عنا الحمد لله أرني وكل سوشيال ميديا وأركتها وملينا أرني تعاون كهذا ولا ما فهم
aad iyo aad oo arkay oo aadana ku xumaa aniga walaalkay Cabdisalaan anoo yar ah ayaan arki jiray horta Cabdisalaan iyo shineemada iyo anoo garay waa gartay gabadhan oo arki jiray shineemada irideed la taataagay oo lacag loo gali jiray aad iyo aad fiican xaqiiqdana de wax walba way iska cad yihiin waa gartay oo wax la inkiri karo this world maanta la joogo waxa waaye baaritaan buu ma baahna star inay tagaan DNA ga cunuga iyo ayaga iska baaraanba ugu filan inay cadeymo heli karaan cadeymo nool haddii la rabane anagoo dee isla xaafadii ah oo xaqiiqda iyo runta og heer soosa DNA anaka DNA qof karsan oo raadina anaga DNA ah wax lagu murmi karo ma marka wallahi wax walba waxa ka wanaagsan dee gabadha in loo duceeyo la dhaho dee walaal dee dembiya gashay halkaan loogu sii loo diintana loo sheego ducadana lagu akhriyo dee ciyaalkana la dhowro qalbigooda iyo niyadooda iyo social media iyo waxaan dhan laga ilaaliyaba ma insha Allah waxa waaye horta wax walba ducada wax ka weyn malahan marka kulli waa u duceyneynaa mideeda kala marqaatiyaashii horta waxaan jeclahay bacaaw oo meeshan ka cad in marqaatiyaashii ay mar kam ka dambeeyo u soo galo marka reer soos walba is jeclaayeen haddana waxaan jecelnahay waxaan ay khayr ku dhamaadaan ma fahantaa arrintan aad iyo aad insha Allah ilaahay khayr ku dhameeyo marqaatiga noolna anaga ahba ma insha Allah oo reer soos ah hal xaafad wada deganeen xaalad walbana ka socota waa aad iyo aad odayaan aan leenahay dhalinyarana aan leenahay fiican aad iyo aad u maashintaa sayid saaxib aadan ku salaama ala ay walaalkay hay salaam alaykum wa alaykum salaam walaalkay aad Cabdi Casiis walaalkay seetaa fiicanta caafimaad ka waran alxamdulillah waa fiicnaa wallahi wala duqownaa wala duqow wala duqoobay wala bidaaristay biyahan iyo shaambo dhacda leh waa bidaarta hataa dhib male wadanka hadii la soo baxay wardiyo wallahi waxa horta marna farxada marna muruga ah inaan horta 20 sano iyo 30 maxay ahayd 15 sano dadaan arkin caaw inta ku arkay sayid iyo muxuu ahay adiga iyo dad badan asado waa ku soo qabanaa walaalkay wax yar isugu waa ku soo qabanaa insha Allah walaal marka ma hado wax badan meesha ma yaalaan annaga haddaan nahay dhalinyarada reer soos dadka waxayna weydiinayaan ahay Cabdisalaan iyo gabadhii ma kala tageen waxaas meesha ma yaalaan waa gartay muhiimadda waxay tahay kala tag kama hadloon anaka ha ilkay caraba isqaliino iyo Cabdisalaan cali qofka lagama hadlayo ha hani muumin maxamed iyo Cabdisalaan cali xaashi ma yihiin dad micnaha is yaqaanay oo isguursaday oo ilmo isu dhalay taas ha annaga ku dhaaranayna annaga cadeynayna de annaga naqaanay oo sidan de nafteena u naqaanay iyaga si fiican dadka marka ka hadlayo oo dhahayo de maxay ahayd oo ninka naagta uu keenay iyo ma aqoon iyo isku dhal iyo asoo farta soo taago soo qabanaa anaga waxaana soo kiciye kaliya waxay tahay in gabadhii ay dhahday hore la iima soo guursan ilmana ma dhalin taasaan micnaa ilaa hadda la yaabanahay maahane gabar la furay iyo gabar ayada micnaa dooqeeda iska raacday waxaas way iska jiri karaan waxaas kama hadlayna xaashaa micnaa waxa weeye si fiican marka waa intaas kaliya waxa weeye youtuberada de waxaas warniyo youtube sheekadiisa waxa way sidiisaba views raadis iyo wax ku kala kicis iyo horta meeshan ma yaalaan ilaahay dartiis waa familkaas waan soo kiciyay haddana qofkii aad taqaanid oo haddana ku leh ka waran wallahi ha wallahi waxaan la yaabay tii oo aniga wax socon la waa ma fahantay wallahi aad ula yaabay wixii adiga u jeedid hadii la dhaha kor waxaan oo saas ma aha marka mid oo naga dhaadhici weysa midaas waa ma fahantay waxaan dhici karin weyniyo waxaan dhici karin aniga macnaa markii hore waxaan maba aad ba mu aaminsanayn laakiin marka arkay iyadoo gabadh la wareysanayo dhahaysa aniga Cabdisalaan ilmo uma dhalin mana i guursan ha marka dadweynihi hadda dadkii hadda oo koobi ah isdhahay niyo ayadii hadda dadkii waxay isla dhaxmarooyaan marka maxay ahayd war iyo saanay ahayd iyo marka waxaan hadda caaw u soo galnay reer soos ahaan waxay tahay in la cadeeyo in hani iyo Cabdisalaan isqabeen ilmana isku dhaleen annaga ilaahay wuxuu marag nooga yahay hani iyo Cabdisalaan inay isqabeen reer ahaayeen oo xataa Nairobi Comrog markii deganeeda naqaanay Faarax kamid ah dadkii habeenkii soo bixisay diyaaradda wax ka soo saaray dad badan oo aan boqolaal iyo kumanaan ah yaqaanay dadkan ma garanaysaa
تفهم marka ma ahan wax oo hadda oo de gacanta lagu dadi karo ama maaragtay hadal inta la geliyo waxaas war la geli karo ma ahan absalaan wallahi waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol nin rag intuu sameeyo wanaag oo waxaan yani inuu ka gaabsado isku dayay oo inuu maaragtay si hoose waxaan isaga dhamaan isku day laakiin de 5 ciyaala oo hoodoodba ay leedahay maba dharin taasaniyo de wax laga aamusi kara hayn ma ahane in rag intuu aamusay ma karat ما شاء الله وحن كل جعلنا كل وحن جعلنا انت سي انك بد انه سي ولا ما فهمت de qofkaan naqaani hanidaan naqaani maaragtay ma ahan wallahi qofkaan wallahi waa qof wax aad uga duwan weey ma garat ilaahay marka iyadana niyo sidee saaxiibkay aad aan kaaga mahad celinaa horta aragaan is aragnay xilli dheer aan soo dambaysay marka maad cabdi casaani aad isku dugsi ahayn ma yaxas ba sax waa si fiican waa barafki waxa maskaxda ka galaniyo waa adno ay dhaysa baasha marka insha Allah dad badanna waa soo qabanaa waa wareey السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهد دكتور عبد العزيز ولالك يقعري واكو السلامي أبو وكاقا عبد الرزاق حاشي قيدي صوص واي ولالو ولقي يا الله انت نوران لايف نمقلين يكو والله يا تاريخ دو قرنتها ولقي لايف مسوقرين عاو كو أولا ها مركا ما هذا أبو معانا وأرنتاس هني يو عبد السلام أنا idinku arooskediya sheegaysan guurkoodii dadka ka shaqeeyayana caruur yar yar ahaydeen idinka waa yar yarayden waa yar beenta ma maalintay hani soo galeysay Ismaaciil Afru xaaskiisa cambaray ku soo gashay baalka la yiraahdo Allah u naxariistay reer Sheekh Cali Cibaar waa gartay burleeg iyo baalka la yiraahdo injineer Cabdikariim burleeg iyo cambara iyo Ismaaciil Afru ay ku timid Ismaaciil ninka la yiraahdo halkaas uu ka bartay aniga iyo raaxeeyaa isbarnay waa gartay arooskooda anaa ka shaqeeyay waxaan ahaa dadkii guurkooda qaban qaabadiisa koobka ahaa si fiican cunuga koobaad maalintii u dhalay aniga isbitaalka gudihiisaan deganaa adiga isbitaalka gudihiisaan deganeed ragoola sheekaymaayo wiilkayga yarka ahayo gacanta ku soo koray ahayd waxa weeye cunuga koobaad habeenku dhalayay cawil jeego inaan inta wejeeda u maleynaa aniga iyo cawil jeego habeenkii waxbaan ka dhafraynay waa gartay isbitaalkii dhinacaan ahaayo hooyooyinka dhalaanka isbitaalka hooyada xumaado musaayisatee maareen si fiican iyo aabahaana uu dhakhtarka ka ahaa doctorka si fiican geedkii weynaa oo wareegsanaya habeenkii aniga iyo Cabdisalaam ku dhafrayn waa gartay oo hani aan ka sugayna marka niyow arrintaas waxa waaye waa wax mucjiso ah oo walaalkay Cabdisalaam wax ku dhacay oo waxa waaye dhibaato caalami ah waaye reerkaas ku dhacday reer isjecel oo nadiif ah oo boqortooyo ah oo sida ay u nool yihiin bini aadan u noolayn oo dhereg iyo dheef iyo dhibba soo wada maray bay ahaayeen waa gartay anaa ilaahay hortiis marqaati ka kacaya hani aniga qabowgan hadda 3 sano ka hor baa iigu dambeysay oo dadka xiriirka badbadan ma ihi adduuniyada shaqaan iska cayrina 3 sano ka hor oo Cabdisalaan iigu dambeysay aan la hadlay reer hani laftirkeedaan la hadlay reer dhaqan oo barakaysan oo nadiif ah oo qurux badan waliba Cabdisalaan waxaan kula kaftay wariya shurugaan ku raacay maxaa wiilasha mar iigu sameey weyday waa ogtahay marka walaalow macaano reerkaas waa reerkeeni waa gurigeeni waa guri aan anagu dhisanay waa guri aan naqaano baalkan la yiraahdo hani reer aabaheed si fiican uma naqaanay laakiin reer abtigeed reer Sheekh Cali Cibaaraan tit by tit u naqaanaa oo adiguna taqaanaa oo qaf ilaa faras oo ugu dambeeyay Allah u naxariistay marka walaalow gabadhaas waa gabadheeni waa walaasheen masiiba naga qabsatay quraana qaf walba meeshuu joogo quraan ha uga soo akhriyo dayuuskan saaxiroolka ah oo reerka sixrayna qofkii gaari karaa hadilo ma insha Allah horta qof walba horta wuxuu sameystay saa ilaahay hortiis kala kulmaayo mis adduunyaha ahaato annaga hadda afaara kala geli mayno waxaan u soo galnay caawa waxay tahay horta gabadhii in la cadeeyo Cabdisalaam iyo hani in la isku cadeeyo horta midaas wax reer soos caawa soo kiciyeen mise aan macnaha saacadan aan u soo jeedna horta waa intaas ma garata caawa barnaamijkeena
aad iyo aad cawil jeega xataa waa ku jira ayaa u malayna wallahi aniga iyo waxaan ahay cawil dhowr maraan fiiriyey waa la ahay waxa uu ku jira cawil waa ismaqalnay duraan mustafa cabdi daahir waa naga hooseeya raxmatullaahi calayh gruubkiini weyn ka waaweyn aniga mustafa cabdi daahir cabdisalaan ilaahay kuma sama diide cawil jeego beri waxaan isku dayaa inaan laajo soo qabto laajo inaan beri raadiyaan isku dayaa ma garata tawakal uu joogaa saada kabanaasa joogo afaya jooga ma fahanta warkaas waa dhan yahay marka niyow arrintaas waa arrin mushkila walaalo halkaas ka wad waa kugu boorinaa waa mahadsan tahay waa anigoo la yidhi hadda doctor cabdicasiis ma uusan dhalin mahad oo aan aqaano raadkaanoo soo fadhiisto dhaha waaye jaamaca le dhaha anoo dhahay doctor cabdicasiis ma dhalin oo shaqo kuma lihi aniga anoo saas dhaha waaye marka wax suurtagalay marka waa mahadsantiin walaalo macaanow shaqan ku jira halkaas ka wada barakooda aad u mahadsan tahay walaalkay aadaan kaaga mahad celinaa saad macnaha quruxda badan aad ummadda ugu sharaxday from A to Z walaalkay aad u mahadsan tahay السلام عليكم سلام الله عليك ودوادين أقول السلام عليكم وقت دير سكين دمبي أنا هذه ولا كلا دوبي ليه وقت دير سكين دمبي سي مرك إن شاء الله كله هدان عاو صار النهارده وفرحت وين ما فهم الحمد لله مرك دي عاو وحي أدي سعدان كسوج جدي أنا كنا سعدان نسوج جدي هرت ودريمي أو لايف لو صار لما قرأت راسي أدي كعيار ها هست الشدنات إلى حد مسكحة ذكية يرويس مركز إن شاء الله وحاول ترى تغفلك كفتك أنا أكفتنا مركز بل إن شاء الله وعن كهرباء ددوينها نيو هرت أرنتان إلى إيميل كوريسو كما جيفانينو هرسوس أول بوسكو دومناين أسكو هبر وعنينا تان أرنتان أرن أن يلينا معهن مركو وعن ربا أرنتان إنها حوغاها ومد حوغاها وشيكتت وحي جيرو ما فاهم؟ ما شاء الله هاني مؤمن محمد يا عبسان على حاجة يحوذ الجعير كلي حتى معهن واقرت واقرت حالكو حال ليرو هاي ما شاء الله عند هواي هاني قبلت أنت كويس تجري كويس راي هذا لا هاي وليه ليه من كورسنا شوفي عن تعال يا راس مبجرة شوفي عن أفتح كنت أسأل عاول جاك متقن تقول ما تاسني ما يله عاول مكسر ما بس عونه ستاسي ما شاء الله ما شاء الله لا إن الأوجه هاني محمد عبد حاسس كيسات سديد عرورة ولا شيء لا أروسكي دي بالله لا لما تنتبه هاي فهمت شوفي عن عشان احنا وبا انت سامي حرصت الدعاء بالله دعاء شوفي عن لما انت اريد ان كوجي فكرنا معها شوفي عن حبيبي معلم وكنا شوفي عن استقنا ان شاء الله ما شاء الله ولكن انت مساجد كنت على انا اوصل ان شاء الله إن شاء الله أرن آد وفي عواي أرنتان قاعد قلب فرون واي شوفي عن الأصلي قاعد كوسا تاجنا دمام واكي واي عيدنا واكي واي ما نقول كرا مرهن شوفي عن التوس هذا نوا ولا له ما لو كل هاري كرا مرة خير صوص هل فران إيه ما فهمت هل فران هاي وأنا هادونا إن شاء الله إن شاء الله ولكن أنا كان كل كم جي فندون برنامج كان نساسا ودينا حبيبي مال وقتنا دونا إن شاء الله ساسا نوبلنا آدي هذا أمها سنتا ولكن وقت جاء سوق لسه ما فهمت هذه كان ما مديار وقت استبد ديارك وساعات جو جورجيك متجو يعني سفيان ليت هذا كان كساعة والله هذا مساس قفل بحنون كسوق عشان واساس حتى مش هيك حتى واحنا بقى او تحت مسيح سفيان waxaan ila joogo geesay si fiican waxaan aad ugu dhawaay waagi kaamiro ku ay dadka qolka xagee okay mana la hadli karaa geesay isaga diyaar waa okay noogu dhiib aad u mahadsan yahay kumaado mas'uul sar waa fiicanahay xoogaa hadda isku aadin kartid meel yar oo iftiin ah mugdiya wajigaada mugdi waay waa dawa si tacbin
ما هذا كوجا بس ماشي استغنى اوكي واحد لك كرتا مركوسا والله اني arrinkan wuxuu ku fiicnaa maana cadday ku fiicnay arrinkan laga ma fahanti dhimale maalin cadayna waa soo galaynaa habeenna waa la soo galaa maalinna dadkii oo joogo dhan aad soo galaysiin ma fahantay ma saas waaye saaxiibkay saas waaye away walaashan waa u duceeyay ma fahanti si fiican wax kale oo dhan ma waxaan leenahay lagu fogaani dumiya lagu fogaani si fiican meel lagu dhaxayna ma jirto si fiican wadana wallahi intaan cadday 8 saac beenimo xaafad soo jeedo oo arrinta intaan ugu fiican dadka caddeyn faan ma caddeyntan waa dhaaftay caddeyn waa dhaaftay waayo hadda ka baxdid intaasoo qof taagan oo marqaati oo gacanta soo taaganaay oo leh wax marka caddeyntan ma u baahno iyo hadal kale oo la isla dhaxmara meesha ma bayaalaanba insha Allah arrintan saacada wallahi awil oo ku oo soo lugay faan marka insha Allah ilaahay arrintan kana qanayso ilaa ay si kana qanayso insha Allah mana ka jiifanayno waana wadaynaa insha Allah ma fahanti أنا طلعتي كمان عبد الرئيس نوع كذا دارما أفريقيا هذا ما جبته ما هدايا جديدة هدايا جديدة وح أفلقادا مسقف أو لغو قلدمايو مسقف أو أن واحد هنا برنامج كنا ممنوع كيه رئيس أفلقادا ما بيقانا ما فهم أنا رئيس إلى نقول أوجي هاي شغال بفرن توجره لكن ما ربنا أبيادو ما أفلقادا شغلكم ماله النيو آدي إذن سلامة حل الدنب إذن تهاي وأسوأ قبلنا إن شاء الله هدو عليهم ما عدين وأنا أقول لك برامج كعدو البدنية هاي أصحابتي بدن وقت قدرت أنا يوم كان ديار صادق dadki soo aroori wixii waayeeladii waalidiintii kulli soo diyaaran xasuusta maad waxaan xasuustaa nijma maalinta dhereysay warada maalinta dhereysay nijma wareega maarta wareegii oo isbitaalka ahaa oo isbitaalka meesha keena iyaa lagu shubay si fiican ragii safnaa ku jira aniga meesha joogay si fiican marka hadda iga hor muuqataaba marka ma insha Allah adima maal cadeen waa qabanaynaa kullay dadka soo diyaari wixii kale marqaati kale naga dhiman noo soo diyaari dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rajaynaa intaan aan ku filan intii oo marqaatiga la leeyahay bas way la leeyahay intaan aan ku filan ma fahmi ma sha Allah ay marka intaas oo taagan insha Allah wixii saacada oo soo sheegno aada u mahadsantahay walaal xamar cadda TV ayaad naga daawanaysan saaxiibayaal haddaad inagu cusubtiin subscribe dhaha gambaleelkan furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddaad horey inoola joogtana madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddaad inoo haysana qaybta comment inoogu reeb waan idin akhrin doonaa waa nabadoonka youtuberada Soomaaliyeed xaaji duco idin leh meesha gududan madow ka dhiga saad u noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ee daawada muuqaalada xiisaha badan ee aan soo dhigno muuqaalkan kiisa xigantayna ku kulmi doona anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo